السلام عليكم kusoo dhawow kanaalka Summit Production iyo walaalkiin Maxamed Xasan waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo casharada imtixaanaha ahaa muddo asbuuc ku dhow ismoognahay caaway waxaan idin wadaa cashar ku saabsan sidii software walba ama application walba oo aad telefoonkaaga ku shubaysid aad u saari lahayd magacaaga iyo sawirkaaga adigu ama ka dhigo mid adigu aad samaysay dadka u tus ama calaamad uga dhigo aad ku isticmaashid oo aad uga garatid applicationada kaleeto la socod wanaagsan ila daawo waxa aynu sameynaa applicationka aynu rabno inaan telefoonka ku shubno wax ka bedelaynaa magaca iyo sawirka si inta u sameyno waxa aynu isticmaali doonaa applicationka la yiraahdo APK Editor Pro waa ka hortiina ka muuqda qaabkaas uu yeelaa marka rabtid inaad ka bedeshid waxa muhiim ah sawirka aad rabtid inaad isticmaashid inuu ku ahaado PNG haddii uusan PNG ahayn kama aqbali doono la soo waa muhiim waan ku dhufanaynaa hadda si aanu shaqadeena u qabsano waxa aad dooranaysaa barta ugu sareysa ee ku qoran tahay select an APK file hadda waxaan rabaa inaan ka bedelo sawirka iyo magaca software applicationka la yiraahdo Camera 360 waan ku dhufanayaa kadib waxaan dooranayaa midda saddexaad oo ah Common Edit si aan sawirka uga bedelo waxaan ku dhufanayaa launcher icon meesha ku qoran tahay sawirka hortiisa yaala sawirka si aan uga bedelo waa sawirkayga waa ii diyaarsan yahay inaan soo diyaarstaa laga rabaa adigana haddii uusan PNG ahayn kama aqbali doono markaas aan doorto saas sawirka iga bedelan yahay magacana aan ka bedelo magaca doontida ayaad ku qoran kartaa aniga hadda kanaalka magaciisa ku qorayaa si aad ila aragtaan hadhow save baan leeyahay kabacdi install wow inuu install gareeyay markaa bal aynu fiirino si uu yaalo soo isu bedelay iska hay waxa kan meesha shaqada ka soo qabatay مباهنت software kan fiirino magaca sawirka soo bedelay waa kaasa oo ujeedaan aan filayaa waa kaasa sawirka aan soo saaray iyo magaca ayaa la soo baxay oo ujeedaan aan maleynayaa shaqo wanaagsan baynu qabanay asxaabay hadda ka heshay casharka ku cajabiyay like inoo saar qaybta faalada commentiga inoo ku reeb asxaabtaadan u share garay wassalaamu calaykum intaanu ku kulmi doono cashar kaleeto waan salaamayaa